iyagoo aan wali qaban hoggaanka boqortooyooyinka loo calmaday dhaxal suginnimadooda ayay balaayiin dollar tabcadeen amiiradan taas oo ka dhigan in hantidooda tirabeel noqon doonto marka ay talada qabtaan boqoradan mustaqbalka hantida badan ay haystaan waxa u dheer qayb ahaan talada dalalkooda oo ay saameyn togan ku leeyihiin subscribe sar haddaad ku cusub tahay kanaalkeena muuqeenana sii faafi haddii uu ku qanciyo kuna soo dhawow xogta lixda dhaxal suge ee dunideena ugu hantida badan Vomahito dhaxal sugaha boqortooyada Japan ninkani waxa uu dhashay November 1965 waa boqor sugaha Hiitaha Japan November 2020 ayaa Vomahito loo caleema saaray dhaxal sugaha boqortooyada dalkan hantidiisii lacageed waxa haatan lagu sheegay $50 milyan waxa uu leeyahay ilaa 700 oo gaari oo u badan Toyota, Nissan, Benz, Yaris, Rolls-Royce ismayaasha uu leeyahay waxaa ka mid ah Tokyo Imperial Palace, Toyota Imperial Palace iyo magurtooyin kale. 2 Batnamap Singh Jaipur India Maharaja Sawi Batnamap Singh waa dhaxal sugaha boqortooyada magaalada Jaipur ee gobolka Rajasthan ee dalka India oo boqortooyo magaaladan waxa la aasaasay sanadkii 1727 taasoo ah mid ka qawaaniin duwan nidaam dawladeedka dalkaasi India hantida dhaxal sugahan waxa lagu sheegay $2.8 bilyan. 3 Amir Hamdan bin Mohammed kani waa wiilka madaxa Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum waa dhaxal sugaha hoggaanka Dubai 39 jirkan lagu naaneyso Biza waxa dhaxal suginimada loo caleema saaray 2008 $50 bilyan ayaa haatan hantidiisa lagu qiyaasay waana hantiila real estate ka ganacsada wuxuuna sidoo kale ganacsiyo ku leeyahay dalalka Ingiriiska iyo Koonfur Afrika wuxuuna milkiyadeeda leeyahay shirkadda DP World wuxuuna lahaa fikradii furitaanka Emirates Ireland wuxuu sidoo kale wax ku leeyahay hotelka 7 star-ka ee la yiraahdo Burj Al Arab. 4 dhaxal sugay Mawli Hassan bin Mohammed waa dhaxal sugaha boqortooyada Morocco waana curadka boqor Mohammed kii lixaad haatan hogaamiya boqortooyada wadankaas iyo amiirad Lala Salma $1.5 bilyan ayaa lagu qiyaasaa haatan hantida 19 jirkan taas oo ka dhigaysa dhaxal sugaha ugu da'da yar ee leh hantida ugu badan diyaaradiisii jadka ee caynkeedu yahay Gulfstream G650 ayuu in badan oo adduunka ku maray midda oo qiimaheeda lagu sheegay $64.4 milyan. 5 dhaxal suge Mohammed bin Salman Saudi Arabia Mohammed bin Salman waa dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga ra'iisul wasaare ku xigeenka dalkaas iyo wasiirka difaaca ka oo hantidiisa haatan lagu qiyaaso $13 bilyan. sawir gacmeedkii Lorenta Defense uu ku bixiyay $450 milyan. doonidiisa yaadka ee $500 milyan joogta guriga uu dalka Faransiiska kaga dhistay $300 milyan iyo malaayiinta dollar uu ku bixiyay naadiga Newcastle United ee ka dhisan horyaalka Ingiriiska ayaa muujisay hantida Mohammed bin Salman dhaxal suginimada ku kasbaday. 6 dhaxal suge Dipankon Rasmijoti Thailand kani waa midka ugu yar caruurta boqorka Thailand maaha Vajiralongkorn taas oo loogu yeero boqorka dunideena ugu hantida badan hantida Rasmijoti gaarka u leeyahay waxa haatan lagu qiyaasaa $60 bilyan.